waa mahadsantahay Bashiir adiga iyo laanta af Soomaaliga BBC-da. Waxaan Garowe Gaalkacyo iyo ugu dambeyn Muqdisho aan ku soo laabtayba aan u tagnay waxay ahayd in wadnay dadaal muddo soo socday oo ku saabsanaa maamulka doorashada tabashooyin laga qabay inaan xal u helidooda ka wada hadalno dhinacyada dowlad goboleedyada ee saaxiibada ah iyo siyaasiyiin kaleba. Arrimahaasaan u tagay Gaalkacyo, Garowe iyo Muqdishoba. magaalada Muqdisho markii aad tagtay waxaad la kulantay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka. maxaa tanaasul ah oo iyaga aad kala kulantay? qodobadii tabashada laga qabay sida hore u sheegay oo dhinacyada oo dhan ka soo kulannay markii aan u imid madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. runtii tanaasul iyo waxay ka muujiyeen inay arrimahaas aad iyo aad ay xil isaga saareen, iyadoo weliba qodobada qaarkood aan loo fiirinayn in heshiiskii ay waafaqsan yihiin iyo inay isan waafaqsanayn un xal laga fiirinayay. si hufan bay arrintaas noola qaateen. waxaanan u gudbinay dhinacyadii kale oo aan wadahadalka ka soo galnay inay jawaabtoodii ka soo bixiyaan. waxyaabaha ay sida gaarka dowladda federaalka uga tanaasushay maxay tahay marka? madaxda dowladdu waxa ay tanaasul ka samaysay qodobadii tabashooyinka ka jireen oo aan horay sidaan kuu sheegay dhinacyada uga soo wada hadalnay. runtii si uga tanaasuleen ama ay u qaateen mas-uuliyadii ku jirto. sidaas baa qodobadaasna waa qodobadii laga wada hadlay. marka taas weeye tan madaxdu ka muujiyeen tanaasulka oo aan dhinaca kalena sidaan hore u sheegnay aanu la wadaagnay. isla dhinacaasi kale aad sheegtay oo ay ka mid yihiin maamulka Jubbaland iyo madaxweynaha hore waxay ku andacoonayaan in weli aysan wax jawaab idinka helin. marka waa iyo ciidaad ku warcelisay. waa mahadsantahay Bashir. arrintaas jiritaankeeda iyo inaanay ahayn wax qarsoodiya dad badan oo siyaasiyiin ah oo arrimahaas ka soo qayb galay ama joogay ama ay markii aan celinay la wadaagnay baa jira oo jooga. markii aan Garowe joognayna dad bay u xil saarteen xiriirka iyo arrimaha inay iyagu u qaabilsan yihiin. waan la wadaagnay kuwii qaabilsanaa iyo kuwo kaleba waa la wadaagnay. waana ogaan kartaayoo dad mas-uuliyiin oo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ugu dhihi karo. taasi waa saasay ku caddahay. waa ka xumaay runtii nin dalka soo maamulay inuu warkaas yidhaahdo anigu inaan u jawaabana mas-uuliyadda saaran baa ka weyn. saaxiibkay madaxweyne Axmed Madoobe haddii aad la socotay waaba la socotay wuxuu yidhi warqad nooma soo qorin madaxweyne Axmed Qorqor. marka warqad nooma soo qorin baa ku filan iyadana inay tahay warkaasi waraan runtii in la difaaco un kaliya lagu talagalay ee aan xaqiiqadii ahayn. maxaa yeelay warqadtii horena laguma soo qorin, aniga warqad igama soo dhiibin. warqad nooma soo qorinna waa wax la fahmi karo. waa hadallo iyo jawaabo aan dalku maanta u baahnay in aad iyo aad looga fogaaday ahayde maaha runtii in la yidhaahdo tanna waa difaaci kartaa tanna waa difaaci kartaa. annagana wax dhibaataa cidna kamaanaan sheegin. haddaad la socoto warkeenni waxaan sheegnay shaqada la soo qabtay, dadaalkii la bixiyey iyo meesha uu marayo. marka jawaab inay xagga jirto kaliya un baan sheegnay. waayahay saacadihii lasoo dhaafay waxaad adiga iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada aad kulamo la qaadanayseen midowga musharaxiinta qaar ka mid a. marka maxaad isla meeldhigteen? dhammaan dhinacyada oo dhan waa iswada aragnaa ama waa ismaqalnaa. marwalbana waxaan ka wada hadalnaa in si habsamiya oo sidii qaabka lagu heshiiyey waafaqsan doorashada noogu dhacdo. tabashooyinkii jira iyo wax kastoo jirana haddii ay yihiin kuwo tabashooyin aan laga gudbi karin oo ama heshiiskii sal ku leh la xalliyo. haddii aynan heshiiskii waafaqsanan yihiinna in maaragtay loo turo. marka mar walba annaga xalka iyo waxaan ka wada hadalnaa sida ay mas-uuliyaddan hortaallaa maanta ay na tusinayso. qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada iyo xukuumadda federaalka waxaad dhowaan ku dhawaaqdeen in la hirgelinayo doorashooyinka. taa markan waxay ka dhigan tahay in dalka ay ka dhacaysa doorasho aysan qayb ka ahayn maamulada Puntland iyo Jubbaland. marna ma maqlin meel lagu sheegay doorasho aan laga qayb gelin. doorashada waa lagu heshiiyey in laga wada qayb galana sax ah. saan hore kugu sheegayna haddii ay jirto tabashooyin oo ku saabsan maamulka doorashada sidii horeba loo sheegay waa in la xalliyo. marka doorasho Puntland iyo Jubbaland ka hareen meel lagu yiri ma jirto ama mid ay ka maqan yihiin sababna ma jirto. maxaa yeelay mar walba waxaa laga hadlayay tabashooyinkii jirana in la xalliyo. doorashadan ay tahay dee waajib tahay in la galo.